Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalka Qaalin Media. rasuulka iyo tobanka dambe ee bishan. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray tobanka dambe ee Ramadaan. Waad la yaabi doontaa, laakiin intaa ka hor waxaan idinka codsanayaa daawadayaal inaad nagu taageertaan like-ta iyo share-ta, maxaa yeelay waxaan jecelnahay noocyadan oo kale oo fiidiyowo ah aan badino aan soo dhigno. Bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulillaah, ilaahay baa mahad leh ee nagu karaameeyey inaan gaarno bishan Ramadaan, ee nagu galadaystay inuuna waafajiyo soonka iyo u istaagidda salaadaha. Waan u mahadnaqayaa Allaha sareeye, waan ku xamdinayaa, waan u toobad keenayaa, waan dembi dhaaf weydiisanayaa. Sidoo kale waxaan qirayaa inuu ilaah uusan jirin xaq lagu caabudo alla mooye keligiisa, cid lala shirigeysana aysan jirin. Wuxuu waafajiyey cidoo doona alla subxaanahu watacaala ee addoomihiisa ah daacadiisa. Markaas bay waxay noqotay dadaalkooda mid la mahadiya, nasiibkoodana mid aad u ballaaran. Sidoo kale waxaan qirayaa inuu yahay Nabi Maxamed addoonkiisa iyo rasuulkiisa. Waa qofka ugu wanaagsan ee salaad dukada ee Soomaa. Waa qofka ugu sharafta badan ee tahajuda ee taraawiix dukada. Nabadgelyo korkiisa ha ahaato, iyo ehelkiisa iyo saxaabadiisa iyo cid walba ee taabacsan ilaa ay maalinta yowmal qiyaama. wasallama tasliiman kathiira. Intaa kadib, walaalkayga muslimka ahoo iyo walaasheeda muslimadda ahee, sidaad u jeedaan sida ugu dhaqsiyaha badan ee ilbiriqsada ah aan ku gaarnay bisha soon iyo istaageeda inay naga sii baxdo. Waxaad u jeedaan sida ugu dhaqsiyaha badan inay bisha barakeysan ee Ramadaan ay nagu dhaafayso. Waxaad arkaysaa inuu isku diyaarinayo inay sii baxayso bishan. Waxaan hore u ahayn shalatoolo kuwa soo dhaweyno bishan aad arkaysaan. Maantana sidaan degdega ah ee ilbiriqsiga ah ay nagu macasalaameynaysaa. Asaga ayaana nagu marqaati kacaya ama noo marqaati kacaya. Wuxuu u marqaati kacayaa qofka mu'minka ah daacadiisa, saalixaadka camalkiisa wanaagsan iyo cibaadadiisa wanaagsan. Wuxuu sidoo kale ku marqaati kacaysaa bisha Ramadaan qofka ka gaabiya wanaagga ee xadgudubka la imaado. Walaalkayga muslimka ahoo iyo walaasheeda muslimadda ahee, maxaa ka dhaqsi badan in xilliyada khayrka badan ay hore u tagaan. Waxaa tagay niska bishan barakeysan, waxaana hare niskeeda kale. alla waxaan weydiisanaynaa idinkana aan idiin weydiinaynaa inuu naga aqbalo wixii naga tiri, sidoo kalena inuu nagu caawiyo wixii noo hadhay. waxaa hadda dusheena ah ee hadda iminka nagu soo foodleh ama aan sii gelaynaa tobanka dambe ee bisha Ramadaan. waxaad ogtihiin waxaana ku sugan khayraadka oo dhan iyo ajir fara badan. sidoo kale waxaa ku sugan fadaa'isha oo dhan ee caanka ah iyo astaamaha sare ee gaarka ah. nabigeena suubanaa sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid ku gaar yeelo tobankan dambe ee Ramadaan shaqooyin ama acmaal uusan qaban jirin bisha inteeda kale. walaalkaygayo, waxaana hadda aan kuu soo bandhigayaa hanuunka ama waddada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee tobanka dambe ee Ramadaan. shaqooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam ama acmaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam ee tobanka dambe ee bisha Ramadaan oo qaban jiray. ugu horeyn, sida inoo sheegayso hooyo Caaisha ama ummul mu'miniin Caaisha allaha ka raali noqdee, wuxuu ahaa ayay ummunaa leedahay rasuul alla sallallahu calayhi wasallam mid ku dadaala tobanka dambe si uusan ugu dadaalin khayrkeeda ee bisha Ramadaan. rawaahu muslim. xadiiska lafdigiisana wuxuu ahaa kaana rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam yajtahidu fi alcashri alawaakhiri maa laa yajtahidu fii ghayrih. rawaahu muslim. wuxuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid nooleeya habeenkeeda. wuxuu ku nooleyn jiray salaad, duco, istikfaar iyo khayrkeeda. sidoo kale waxaa ku soo aroortay xadiiska hooyadeena Caaisha radiyallahu canha ee asagana ay warinayso. waxay leedahay rasuulka sallallahu calayhi wasallam hadduu soo galo tobanka dambe habeenka ayuu nooleyn jiray, ehelkiisa ayuu toosin jiray, wuu dadaali jiray, hoos guntigana wuu adkaysan jiray ama guntiga ayuu dhiishiis kaga dhigi jiray sida la yidhaahdo. waa xadiis muttafaq ah. lafdiga xadiiskana wuxuu ahaa kaana rasuulullaahi sallallahu calayhi wasallam idaa dakhala alcashra axya alleyla wa ayqada ahlahu washadda almi'zara. muttafaqun calayh. macnaha loola jeedana hoos guntiga ayuu adkaysan jiray waxaa laga wadaa wuxuu ka fogaan jiray
reerihiisa asoo ku mashquulsan cibaadada. sidoo kale waxay oranaysaa ummulmu'miniin hooyadeena Caaisha Allah ka raali noqdee waxay noo sheegaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dari jiray bay leedahay 20-ka dambe salaad iyo soom iyo hurdo. hadday ahaato 10-ka dambe ee ugu dambeysa ee bisha Ramadaan wuu dadaali jiray guntigana wuu adkeysan jiray. xadiiskaa waxaa wariyay Axmed. lafdigana waxaa waye xadiiska haddaan sheegno كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط 20 بصلاة وصوم ونوم فإذا كان 10 شمر وشد المئزر. رواه أحمد. أرنك الله بعد وحيتها النبي هدي ساء بشان طبعا كان طبعا الأواخر كاه وروها النبي عليه الصلاة والسلام مد توسية أهل كيسة ذكري أنا بضيع دعاءنا بطشا أسوق دالي إنه كفى إدستو هبينا ذا بركيسن. sida inoo sheegtay ummulmu'miniin Caaisha radiyallahu anha rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa haddee soo gasho 10-ka dambe mid habeenkiisa nooleeya ehelkiisa joosiya dadaala guntigana adkaysta. waa xadiis muttafaq. sidoo kale sallallahu alayhi wasallam wuxuu garaaci jiray albaabka Faatima iyo Cali gurigooda habeen iyadoo ah markaas buu wuxuu oran jiray miyaadan tooseyn oo aadan tukanaynin. متفق عليه حديثك. لفظه سنوحوها. وكان صلى الله عليه وسلم يطرق باب فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما ألا تقومان فتصليان. متفق عليه. أرنك سيدحاده ياهي هدي نبي كمدها وكنوا لينجري 10-ka dambe wuxuu ahaa mid اعتكافا maalmaha 10-ka ah ee ugu dambeeya sida ku soo aroortay xadiis ay noo warinayso ummulmu'miniin Caaisha رضي الله عنها. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو اعتكاف جري بالكستو أو رمضان 10-keeda dambe markay ahaatay sanadkii ugu dambeeyay ee nabiga la oofsanayay wuxuu اعتكاafay nabiga 20 maalmood. macnaheedu waa maxay 10-ka hore markuu dhaafay 20 kaloo dhan waa اعتكاafsanaa sanadkiisa ugu dambeeyay ee nabiga عليه الصلاة والسلام waa la oofsaday. laakiin intii hore caado waxa uu ahayd 10-ka dambe ayuu اعتكaafi jiray maadaama hadda uu الله حقي سوء صعدة أي 20-kaas ka dhigay laakiin caadiyan waxa weeye ahayd 10-ka dambe. اعتكافكana waxaa loola jeedaa inuu qofka laazimo masjidka asagoo isku dhigaya daacada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. اعتكافkana waa sunanka ee la sugay ee ku sugan kitaabka Allah iyo sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam kama qaala Allah ta'ala sida uu ku yiri kitaabkiisa muhkamka Allah wala tubashiruhunna wa antum caakifuna fil masajidi aw dawaanina أوريهنا أمريرهنا إذنكو أو اعتكافسن مساجدة مساجدة لازمي إن أتكو عبادة ستان أتكو بردان أتشوكتان إنو إذنكو الله قدواني. أبي هريرة رضي الله عنه وحال قوري إنو يري رسولك صلى الله عليه وسلم هو اعتكاف جري بالكستو رمضان 10-keeda dambe laakiin sanadkii nabiga عليه الصلاة والسلام إلا أفسني 20 maalmood ayuu اعتكافي. رواه البخاري. حديث كان بخاري باوري. إلهنا سبحانه وتعالى وحوجد اعتكافك وقفك مسلمك وحكستو أي سبب نقون كرتا إنه قلبي ليس مشغولية أو كمشغولية عبادة الله عز وجل سذا آويت وحاهبون هو ناكسن قفك اعتكافيا إنه كمشغولة ذكرك أي حسك الله أخرنت قرآنك صلاةها هي عبادوينك نوعية كلا دوان iyo inuu ka fogaado waxaan qusaynin ee hadal adduun ah. hadiga afaraad ee bishan uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ula dhaqmi jiray waxaa ka mid ah oo gaar ahaan 10-keeda dambe xaqiiqadii in uu ahaa mid habeenka laylatul qadriga ah doona ee raadiya halkay ku jirto uu ku dadaali jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam si uu habeenka u helo. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu habeenka oo ugu magac daray laylatul qadr al-azim. laylatul qadr waa habeen oo qadarta ah oo la soo dejinayo la jangoonay li'azim qadriha maadaama ay makaankeeda iyo darajadeeda ay sareyso iyo sharafteeda wajalaalati makaanatiha iyo booskeeda oo uu sareeyo Allah agtiisa iyo in ay badan tahay dambi dhaafka dunuubta iyo ka taga ceebaha bini aadanka. sidoo kale maqaadiirta
ee loola jeedo waxyaabaha la qadarayo dhan habeenkaas ayaa la qadaraa la qoraa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku gaar yeelay habeenka khasaa'is ama astaamo fara badan oo ay ka mid tahay waxaana ugu horeeyo soo degitaanka qur'aanka kariimka inuu habeenka laylatul qadr soo degay taasoo ay ku sugan tahay hanuunka bini'aadanka oo dhan iyo farxadooda adduun iyo aakhiraba. sidoo kale mucjizad weligeeda waarto inuu muxuu ahaa qur'aanka ahaado oo habeenka la soo dejiyo. allahna subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu wuxuu ku yidhi innaa anzalnaahu fii laylati alqadr, qur'aanka waxaan soo dejinay habeenka wax walba la jaangoonayay. arrinka labaad wuxuu yahay ee ku saabsan habeenkan laylatul qadr inuu alla ku tilmaamay xaqiiqdii inay habeenkan uu ka qeyr badan yahay kun bilood markaan ka hadlaynana waxay u dhigmataa 80 sano iyo wax la jiro ee ka qeyr badan tahay halkan habeen oo si wanaagsan aad u cibaadaysataa oo ilaahay ku waafajiyaa cibaadada aad soo cibaadaysanaysa dhowr 80 sano 83 sano 84 sano iskaba dhahba 80 sano ay ka qeyr badan tahay. ilaahayna wuxuu ku yidhahay fii maxkam tanziili laylatul qadri khayrun min 1000 shahr, laylatul qadr waxay ka qeyr badan tahay kun bilood. arrinka saddexaad ee ku sugan tobankan dambe ee laylatul qadr waxay tahay in allah subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamo inay tahay mid barakaysan ee macnaheedu waxaa loola jeedaa barakaadkeeda ayaa badan, khayraadka ku sugan ayaa badan. sidoo allah subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu ku yidhi innaa anzalnaahu fii laylatin mubaarakah, qur'aanka waxaan soo dejinay habeen barakaysan. habeenkaa barakaysanna waxay ahayd laylatul qadri ayay ahayd. waa habeenada tobanka dambe ee laylatul qadri ah ayaa qur'aanka la soo dejiyey. arrinka afaraad ee habeenadaa xambaarsan yihiin waxaa ka mid ah habeenkaa gudihiisa malaa'igta ay soo degayso waruuxu uu soo degayo oo malakul jibriil ah uu soo degayaa. waxaa badanaya habeenka soo degista malaa'igta maadaama ay barakadeeda badan tahay. dhulka ayay u soo degayaan, waxay ula soo degayaan khayr iyo barako iyo naxariis. malaa'igta habeenka dhulka inay soo degto ee khayr iyo barako iyo naxariis ula soo degaysaa. kelmadda ruux waa la ku sheegay qur'aanka waan soo sheegay waa jibriil calayhi salaam. waxaa sidaana loo yidhaahday asagoo la sharfayo iyo makaanada uu malaa'igta ka joogo dartiisa ayaa ruux loogu tilmaamay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanku ku yidhaahday tanazzalu almalaa'ikatu waaruuxu fiiha, malaa'igtan way soo degaysaa. tanazzalu almalaa'ikatu way soo degaysaa, waaruuxu sidoo kale ruuxan wuu soo degayaa oo malakul jibriil ah habeenka. arrinka shanaad ee lagu gaar yeelay habeenada ee tobanka ah waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay inay tahay nabadgelyo ee salaam. maxaa yeelay waxay nabadgelyo ka tahay ee ka maran tahay maxaa yeelay shaydaan oo dhan inuu sameeyo xumaan ama inuu wax geysto dhaawac ayaa ka maran tahay habeenka. sidaas baa waxaa loogu tilmaamay habeen nabadgelyo ah, wax dhib ah uusan bini'aadanka arkaynin. sidoo kale waxaa la yidhaahdaa waxay u tahay nabadgelyo mu'miniinta kuwaasoo cabsi fara badan qabay ee naarta laga xoreynayo, sidoo kale ka badbaadaya cadaab. maxaa yeele waa habeen cidku min annaar ee tahay. waa tobanka dambe ee ramadaan. sidoo yidhaahda kama qaala allahu subxaanahu wa tacaala fii maxkam tanziil ilahi wuxuu ku yidhahda salaamun hiya xataa matlaci alfajri. maxaa habeenkaa ee laylatul qadri habeenkaa waa nabadgelyo ilaa waagu ka baryo. sifada lixaad ee habeenada laylatul qadriga leeyihiin waxaa ka mid ah sidoo alla subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu noogu sheegay fiiha yufraqu kullu amrin xakiim. isla habeenkaa ee laylatul qadri ah ayaa la kala shaandhaynayaa arrin kasto ee maamuus mudan ee wanaagsan ee dan u ah qalqiga. waxaa loola jeedaa wixii ayaa lowxul maxfuudka ah laga soo kaxeynayaa ee awaamirta alla ahay subxaanahu wa tacaala ee sanadkaa oo dhan loogu talagalay. hadday arsaaq ku saabsan tahay, haddii cumriga da'da ay ku saabsan tahay qofka intoo noolaanaya, hadday khayrka ay ku saabsan tahay ee dadka bini'aadanka xilligaa helayaan ee adduunka ku qaadanayaan, wixii shar ah oo dhici lahaa oo dhan iyo wax kastoo cibaadka addoomaha oo allu u qadaray ee acmaashiisa wanaagsan oo dhan iyo wixii intaa ka badan ayaa habeenkaa yufraqu xaggaasaa laga soo qaadaa lowxul maxfuudka. waxaa lagu soo wareejinayaa malaa'igta qadartii halkaas meel walba ee xaqooda ay ka siinayeen muxuu ahaa bini'aadanka iyo dhulka. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhahday kullu amrin xakiim. waxaa loola jeedaa amrin xakiim awaamirta ilaahay ee sugan ee adag taasoo aan ku sugnayn baadi ama nusqaan ama baatil aan ahayn. waa amar iyo qadar
oo dhammaystiran ee wanaagsan ee sugan ee naga ahaata. Arrinka toddobaad ee ku sugan tobankan dambe waxay tahay in Allah subxaanahu wa tacaala uu u dambi dhaafay qofkii habeenkaa istaagay asagoo rumaysan ee aaminsan oo ka rajeynaya Allah subxaanahu wa tacaala inuu u dambi dhaafo dembigiisa hore, sidoo nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay uu yidhi lafdiga xadiisku sidaan uu ahaa: man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dembih. qofkii u istaagaa habeenkaa laylatulqadriga ah asagoo iimaan yaqiinsan, qalbigiisa ka yaqiinsan, waxtisaaban alla kaga dalbayo inuu ka helo habeenkaa ajir, ghufira lahu maa taqaddama min dembih, waa loo dembi dhaafaa wixii horeeyay oo dhan oo dembigiisa. muttafaqun calayh, waa xadiis isku waafaqay ee saxiix al-Bukhaari iyo Muslim. marka lagu leeyahay iimaanan waxtisaabanna waxay tahay qofkaasoo rumaysan ilaahay balankiisa inuu u dambi dhaafayo. ixtisaabanna markuu lagu leeyahay waxay tahay rajeynaya ama dalbaya, qofkaasoo raadinaya ajir aan ka doonaynin istus salaadaayo waxay markuu aaday. arrinka sideedaad waxay tahay ee ku sugan tobankaa dambe xaqiiqdii in Allah subxaanahu wa tacaala uu habeenkaa fadligiisa suurad dhammaystiran uu ku soo dejiyey, taasoo la akhriyo ee la xuso ilaa maalinta yowmal qiyaamo. dadka dhexdiisa weli lagu dhex aqriyo, waad garanaysaan suuradda habeen kasto ee ahaataba. haddaba laylatalqadriga habeenkee noqonaysaa weeyaan? laylatulqadriga bisha ramadaan marka aan ka hadlayno waa habeen uu alla subxaanahu wa tacaala qur'aanka ku soo dejiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuxuu noo sheegay inuu alla qur'aanka subxaanahu wa tacaala soo dejiyey bishaa. wuxuu yidhahda allah: shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan. bisha ramadaan oo qur'aanka la soo dejiyo weeyaan habeenka laylatalqadri ee tahay. laylatalqadrina waxay ku jirtaa tobanka dambe ee ramadaan, sidoo inoo sheegay nabigeena calayhi salaatu wassalaam. nabigeena wuxuu yidhi: taxarruu laylatalqadri fi alcashri alawaakhiri min ramadaan. bal ka dadaya laylatalqadriga tobanka dambe ee ramadaan. muttafaqun calayh. waxaana iyadana la xaqiijiyey in ay ku jirto tirada kisiga ah. marka loo eego tan dhabanka ah waxay kaga dhowdahay tirada kisiga ah, sidoo inoo sheegay nabigeena suuban calayhi salaatu wassalaam. wuxuu yidhaahday: taxarruu laylatalqadri fi lwitri min alcashri alawaakhiri min ramadaan. waxaad ka dadaydaan laylatalqadriga tirada kisiga ah ee tobanka dambe ee ramadaan. xadiiskaana waxaa wariyey imaam Bukhaari. waxaana lasii sheegaa inay laylatalqadriga u badan tahay inay ku jirto toddobada dambe ee ramadaan. toddobada dambe ah waxaan ula jeedaa ugu dambeeya ee bisha ramadaan, ay laylatal khaamisata wa cishriin. waa habeenka waxaa la sheegaa inay ku jiri karto 25 ah, 27 iyo 29. nabigeena calayhi salaatu wasalaamna waa inoo sheegay: iltamisuuha fi alcashri alawaakhiri fain dacufa axadukum aw cajaza falaa yaglibanna cala asabci albawaaqi. nabiga wuxuu leeyahay waxaad ka baartaan tobanka dambe ee ugu dambeeya. hadduu taag dareeyo qofkiina ama uu ka caajiso inuu tobankaas wada xiriiriyo, falaa yaglibanna cala asabci albawaaqi, yaasan ka guulaysan ama ay ka tanbadin inuu kari waayo toddobada dambe. macnaheedu 7, 8 iyo 9 wixii toddobada ka dambeeya 27 yuusan kaga dibdhicin, ha ku dadaalo. sidoo kale nabiga calayhi salaam wuxuu yidhaahday: araa ru'yaakum qad tawaatu'at fi sabci alawaakhiri. waxaan arkaa riyooyinkiina inay iskugu wada imaadeen toddobada ugu dambeyso tobanka dambe ee ramadaan. liman kaana mutaxariiha, qofkii doonaya inuu ku dadaalo uu raadiyo, falyataxaraha ha ka baaro fi sabci alawaakhiri toddobada ugu dambeyso. muttafaqun calayhi, asagana waa xadiis isku waafaqay. sidoo kalena waxaa la sheegay toddobada kisiga ah ee ugu dambeeyo inuu yahay. toddobadana waxaa laga wadaa marka lagu sheegayo 27 oo ah 27 ayaa laga wadaa. taasna waa tan ay isku waafaqday culimmada badankooda. welina waxaa ku sugan ay hadalkaan ka soo naqlinaynaa xadiidka uu wariyey Ubay ibn Kacb uu lahaa: ilaahay baa ku dhaaranayaa, xaqiiqdii waan ogahay habeenka ee tahay laylatalqadri habeenkuu rasuulkana amray inaan u istaagno waan garanayaa, iyo laylatu 27. saxaabiga jaliilka ah Ubay ibn Kacb wuxuu leeyahay waa habeenka 27. xadiiskaa waxaa wariyey Muslim. sidoo kale qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabigeena yidhaahday: laylatulqadri laylatu 27. laylatulqadri waxay tahay waa 27 ee bisha ramadaan. xadiiskaana axmed iyo abi daa'uud ayaa wariyeen. waxaa la sheegaa inay ibn xajar
imaam nawawi iyo keyrkooda culimada ka mid ah inay ku tageen iyagana inaysan habeenka laylatul qadri ee gaar u ahayn habeen gaar ah oo la garanayo ee sanadka oo dhan inaysan habeen gaar ah aysan ku jirin laakiin ay tahay habeen ee mar walba sanad walba meel gasho sanad walba habeen buu ka galaa hadduu sanadkaa noqday 27 tusaale ahaan sanadka dambe soo socoto wuxuu noqonayaa iyadana 25 oo kale ama wuxuu noqon karaa 29 taasna waxay noqonaysaa anagoo u eegayna doonista ilaahay subxaanahu wa tacaala ay xikmadiisa iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee suuban oo raahdiisa u lahaa waxaad ka baartaan iltamisuuha fii taasicatin tabqa haddee 9 ay gaarto 29 way ahaatay fii saabicatin tabqa ama haddee 27 ahaatay ka baara fii khaamisatin tabqa haddee ahaato 25na way ahaan kartaaye ka baara marka macnaheeda dhammaan way wada yihiin meel mucayan laguma caddeyn karo marka sidaa aaweeda waxaa weeyaan adiga inaad jumlad u qaadato 10 dambe oo dhan inaad dadaasho walaalkayga muslimka ah ama walaasheed muslimadda ahayd xikmadda loo qariyana habeenka ee addoomaha loogu qariyay waxaa u badan tahay sida culimmada ay noo sheegeen in naxariis iyaga loo naxariisanayo ay tahay inuu bato sidoo kale doonista ay doonayaan addoomaha habeenka iyo dadaalka ay ku dadaalayaan cibaadada maxaa yeelay haddii 10 dambe la yidhaahday 10kaasoo dhan buu nooleynayaa salaad buu ku nooleynayaa xus buu dikri buu ku nooleynayaa duca ayuu ku nooleynayaa waxay u dhowaanayaan addoonku aad ugu dhowaanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u dhowaanayaa ayuu ku xirnaanayaa markaasna wuxuu noqonayaa addoon ilaahay agtiisa laga jeclaado haddaba calaamadaha lagu garto in habeenka laylatul qadriga aad aragtay ama waxyaabaha aad ka dareemi karto inaa habeenka aad dukatay oo laylatul qadri ay tahay waxaa la sheegaa inay jiraan calaamooyin ee lagu garto laylatul qadri taasna waxaa inoo sheegay nabigeena sallallahu calayhi wasallam waxaana ka mid ah calaamadeeda koowaadna aan idiin sheegayaa waa habeen ee saamaxaadeeda badan tahay fasaxaadeeda uu badan yahay ee jawi degan leh kuleel aan ahayn qawow zaa'idna aanan lahayn siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay nabiga calayhi salaam wuxuu yidhaahday asagoo ka hadlaya laylatul qadri طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة عليها هبينك ليلة القدر وهبين قوو فرفران لا حارة كلال معها ولا باردة قوو زائد معها تصبح الشمس عدعادنا معناتها وحي صباح يومها حمراء ضعيفة إيضا عصوصة تقدرا معناه الحوك مصبحس ددك مقبيس معناتها حديثك وحاوري ابن خزيمة calaamada labaad ee lagu garta habeenka waxaa ka mid ah iftiinka zaa'idka iyo nuurka zaa'idka ee ku sugan habeenka ama dayaxa ayaa iftiin zaa'id leh habeenka aad buu u ifaya laabtaada ayaa qaboobaysa habeenka markuu ku guda jiro waxaa intaas sii dheer dabeesha waxay noqonaysaa habeenka mid degan sidoo kale habeenka lama arkayaba waxa loo yaqaan dambaaburo ama waxa la yiraahdo xidigaha ee la soo gamo shaydaanka lagu gamo ee shihaabka loo yaqaan lama arkay habeenka maba lagu dareeyo shaydaanka xataa habeenka taasna waxaan ka soo xiganaynaa qowlka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa laylatul qadri laylatun baljatun laa xaarata walaa baaridatan laa yurmaa fiiha binajmin waa habeen degan aan kulaal ahayn aan qawow ahayn mana la gamayo gudaheeda xidig xadiiskaa waxaa wariyay imaam axmed calaamada kale ee saddexaad ee lagu arki karaya habeenka waxaa ka mid ah oo ka garan karaya adoonka inay cadceeda tadlucu ay soo baxayso aroorteeda iyadoo aan la socon wax ilays ah waa garanaysaan ilayska waa falaaraha lama soo baxayso sida caadadeeda ahaan jirtay maalmaha kale ee la soo bixi jirtay ilays habeenka laylatul qadr haddii ku soo martay subaxii cadceeda kama arkiis calaamadihii ilayska ahaa taasna waxaa ka soo daliilsanaynaa qowlka nabiga calayhi salaam ee ahaa صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها كأنها حلت حتى ترتفع أروت ليلة القدر عدعات ويصبح ذا وحفل رأهن ما له شعاع كأنها وحمودة حلت حتى ترتفع إن لقعدة بإيضا ماشي لقعدة إلا قرأ كجارتموية ما بأركيس بفلالها حديثك مسلم أيا وري كتاب كيسو حتى بقى
qofka muslimka ah maalintaa muxuu sameynayaa? Wuxuu ku dadaalayaa oo ku nooleynayaa tahajjudka ee laylatul qadriga ay tahay. Wuxuu ku dadaalayaa salaada faraha badan sidoo nabiga calayhi salaatu wassalaam uu inoo sheegay. Man qaama laylatul qadri buu nabiga yidhaahday iimaanan waxtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dambi. qofkii istaagaa habeenkaa laylatul qadri ama maalintaa u istaagaa iimaan asagoo ihtisaaban ilaahay ka ajir dalbaya ghufira lahu maa taqaddama min dambi. dambigiisa wixii soo hormaro dhan waa loo dambi dhaafaa. sidoo kale waxaa loo baahan yahay habeenkaa kathratu ducaa in ducada la baryo, gaar ahaan weliba ducada ku soo aroortay ummuna Caaisha radiyallahu canha ee inoo sheegtay goor ee nabiga calayhi salaatu wassalaam ee ku tiri ara'ayta in waafaqtu laylata alqadri maa aquulu fiiha. nabi allo haddii bal ka waran ayay tiraahday haddii aan waafaqo habeenkaa laylatul qadriga ah maxaan oranayaa gudaheeda? markaas buu nabiga calayhi salaatu wassalaam yidhi quulii waxaad tidhaahdaa allaahumma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cannii. allaahumma alloo adiga xaqiiqdii waa mid waxaa tahay dembi dhaafa, waxaad jeceshahay u dembi dhaafka addoomaha, facfu cannii ee ii dembi dhaaf. ducadaas ayaa waxaa la sheegaa in nabiga calayhi salaatu wassalaam oo ummuna Caaisha radiyallahu canha uu kula dardaarmay. sidoo kale habeenkaa waxaa loo baahan yahay qur'aan fara badan in qofka muslimka aqriyo, dikriga iyo istighfaarta uu badiyo. ilaahay ha idiin naxariistee dadaala raadiskeeda aan ku dadaala laylatul qadri. waa xilliga ee la dalbi lahaa hadda ayaa lagu jiraa walaalayaal. ka fogaada qaflad inay idin raacdo oo aad noqotaan dad hilmaamsan laylatul qadriga iyo 10ka dambe oo dhan, taasoo nii keeni karto inaad ku dhuntaan aad ku khasaartaan. sidaa darteeda walaalayaal khayrku waa la isgaarsiiyaa. waxaan jeclaaday in aan ilala wadaago waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo iyo calaamaadka lagu garanayo laylatul qadri ee 10kan dambe. walaalayaal 10kan dambe laylatul qadri aynu nooleeno cibaadada iyo dikriga aan ku nooleeno. gadaalna waxaad u raacdaan shay walba oo aan ka soo hadlay ee nabiga calayhi salaatu wassalaam aan ka soo gaarnay adiga oo mahadsan. intii kulantin dambe waa qaanimeedii oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay hanaga aqbalo acmaasha aan qabanayno. wabillaahi tawfiiq.